السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دمان أصحاب تقاليقا دياد بندين سلامية كسو دوادا جننكا جنطون إن شاء الله تعالى سيدان شبنا جننكا وحن كسو قدبين دونا جامعadaha iyo deeqaha waxbarasho sida loo xireysto sidoo kale channelka waxaad kala socon kartaa muxaadarooyinka duruusta khudbadaha iyo barnaamijyo kale oo tiro badan ayaa kala socon kartaa insha Allah taala maanta jaamacadda aynu sharaxayno qaabka loo xireysto waa jaamacadda la dhaho jaamica alqaasimiyya marka deeqdeeda waxbarasho sida loo xireysto ayaan insha Allah taala fiidiyogan ku sharaxi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo qof kastoo xiriistana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha u fududeeyo marka jaamacadda markaad xareysanaysid waxaad galaysaa page-keeda linkiga laga galayana insha Allah taala waxaan soo dhigi doonaa fiidiyoga xaqiisa oo soo dhigi doonaa sidaan sheegnay insha Allah taala channelka waxaan ku sharaxi doonaa qaabka loo xireysto jaamacadaha kala duwan ee dunida ku yaala insha Allah taala wixii aynu awoodno day Aasiyiin iyo wadamada Carabta iyo Yurub iyo jaamacadaha noocaas insha Allah taala marka si ay ku soo gaaraan jaamacadaha markaynu sharaxayno iyo qaabka loo xiranayo marka la furo channelka subscribe saar كمبلغنا فرصي فيديو كوسو قارن إن شاء الله تعالى مركز جامعة مركز حريسانيسيد واحد كليسا بيج كده لينك لقى قالوا يحلق لقى حريو فيديو هوستي سأين دينا إن شاء الله تعالى مركز حتى ذن أندوبي جامعة والفرنت هاي سي أدلو سعودي جامعة حلق الفرايو يو حلق حرمي سو لينك جالس الله سبحانه فيديو هوستي سأنا صور دي دانو فيديو قانا إن شاء الله تعالى سفكريسو مركز حتقول فنسا سجل الآن تسدخل فنسا سجل الآن أيات كل فن marka wada aragtaa wuxuu galay page-kii jaamacadda ee halkii laga xireysanayay ayaan maxay tagnay waxa la qaadayaa 7 step 1 2 3 4 5 6 step-ka koowaad waa inaad akhrido tacliimaadkan iyo waxyaabaha laga baahan yahay waxa lagu yiri faylalka soo socda iyo waxyaabaha soo socda wax kasto ay saaran tahay xidig cas oo wax loo baahan yahay oo ay muhiim tahay inaad ku qortid meesha sidoo kale dhammaan malafaadka laga baahan yahay shahaadooyinka passport iyo wixii kale dukumentiya waa inay noqdaan bal weeri GBG waa inay noqdaan labada malaf ee ugu dambeeya oo ah الموافقة الإدارية iyo wasiiqada tacaaruf oo aynu sheegi doono waxay yihiin ayaa iyaga loo baahan yahay inay word noqdaan marka halkan marka timaadid waxa ugu horeeya aad doonaysid waa xilliga aad doonaysid inaad ku biirtid jaamacadda oo aad qadimatid waa فصل الدراسي كام سنة دوكيتك لوضع كوني لاتنكا سنة وحبرشتك لوضع كوني لاتنكا إلى لوضع كوني لاتنكا أنت مركز دورتي وحا هلك اللي ويديي وحا أدوني سيد إناد دقتيد صدح شيء ودوران ساعة وأقول بها أنت إناد دقتيد جعشة مركز ورا سوحنا لي وحرب كلية القرآن الكريم كلية القرآن الكريم تخصص كان كرهوانا بكالوريوس علوم القرآن وحلا بعدين دوني أنا دكتور وكلية الشريعة تخصص كان كهرباء وبكالوريوس كلية الشريعة وحصدحات شيء صدحات دوني ونقالها وحان دوني بكالوريوس نقالها صدح لا مركز دونتي صدح لا معلولية دورو حد وحي بنان لقادنا يبقى أي جامعة دوينيس waxa lagu waxaad qortaa magacaaga sida uu ugu qoran yahay passport-ka isagoo English marka waxaan qorayaa Maxamed magacaaga iska qor magacaaga marka qortid waxa lagu yiri magacaaga oo Carabi ku qoran sidoo passport-ka ugu yaalo marka passport-ka Soomaaliga waa taqaanaa magaca Carabi kuma yaalo badanka kuma yaalo marka halkaan waxa ku taala sida la socotid xidig cas laakiin halkan xidig cas kuma qoran taa macnaheedu waxay tahay waa iska tagi kartaa wax muhiim ah maaha inaad Carabi ku qortid magaca maadaama aan passport-ka isagoo Carabi ku qoran jinsiyadda iyo dalkaad ku dhalatay ayaa dooranaysaa halka Soomaaliya ku jirta Soomaal waatan passport lambarka qor baa lagu yiri waa bi passport lambarka marka qortay halka passport ka soo baxay dalka uu passport ka soo baxay waa Soomaaliya halka ma ku qoray dalkii marka qortay taariikhda passport ku dhacay matalo kale waxaan passport kan ku dhacaya 2025 bisha May 9 saas aad u dooranaysaa ID card-ka
baasaboorka la socda ayaad halkaa ku qoraysaa. laakiinse sidaad aragtid calaamad xidigii ma saarna, sidaa awadeed waad iskaga tegi kartaa, laakiinse waan iska qoran. halkan waxaa lagu yidhi ID kaarka imaaraadka geli, laakiinse halkan waxaa loogu talagalay lilmutaqadimiina min daakhil dowlat alimaaraat faqat. cidda imaaraadka joogta weye, dadka imaaraadka degan ee haysta ID kaarka imaaraadka. tagale kusii xigtaa raqam almuwaxad, iyaduna maxay ahayd waa dadka imaaraadka degan weye. taariikhda dhalatay geli baa lagu yidhi, waad iska hubsanaysaa. waxaan yidhi wuxuu dhashay qofka mutala kale 1998 bishii Diseembar 10keedii. halkaasuu geliyey meesha uu ku dhashay, dowladda lab, waa muslim, waa doob, waa aczab. haddii halka calaamada ku saaran tahay halkaasuma calaamada waxba ma sii bedelaysa. halkan markaad u timi waxaa lagu yidhi waa inaad ku darata halkan soo gelisaa baasaboor shaqaynaya oo maxay ahayday ugu yaraan xilligii uu dhici lahaa ay ka dhiman tahay sanad iyo wixii ka badan. markaa waynu soo gelinaynaa loo kale soo geli sawirkan. waxaa lagu halkan waxaad gelisaa oo kale saad la socotid sawirkii soo geli baa layihi. halkaa waxaa ku qoran waad aragtaa, waxaa ku qoran sawirkaagii korka ahaa oo 4.+3 oo backgroundkiisa uu cad yahay. halkaa geli. marka waxaa lagaga baxay sawirkaaga backgroundkiisa inuu cadaado. warqadda dhalashada geli baa lagu yidhi sidoo kale. warqaddii dhalashadana waynu soo qaadnay. halkan waxaa la yidhi soo geli sawir iqaamada imaaraadka. dadka imaaraadka degan baa taa loogu talagalay, waad aragtaa calaamad xidig oo casina ma saarna. sawir maxay ahayday baa la yidhi halkaana soo geli. sawirkaana dadka imaaraadka degan baa looga baahan yahay. halkan waxaa la yidhi waliyul amriga iyo mas-uulkaaga geli. magaca aabahaaga kala gelinaysaa maxamed. magaca markaad gelisid waxaad gelisaa waa lagu yidhi diinta uu qofka mas-uulkaaga haysto waa muslim baa tiri. magaca hooyada geli. magaca hooyadana waad gelinaysaa. diinteeduna waa muslim baa tiri. halkaa waxaa lagu weydiiyey ma shaqaysaa? waa laa. wax xanuuna miyaad leedahay oo qof naafa miyaad tahay? yacni halkaan laa baa ku qoran. sidoo kale halka waxaad gelinaysaa macluumaadkii lagala soo xidhiiri lahaa, dalkaad degan tahay, magaaladaad ku nooshahay, lambarka lagagala soo xidhiiriyo, gmailka lagala soo xidhiiriyo ayaa loo baahanyay. marka waxaad tiri dalkan deganahay waa Soomaaliya. dalkan deganahay waa Soomaaliya tiri. magaaladan deganahayna waa matan loo kale. waxaan deganahay magaalada degan tahay Soomaaliya, ka degan tahay sheeg baa la yidhi. Hargeysa Soomaaliya ka deganahay. baasaboorka ama sanduuqul bariidka waad aragtaa calaamad xidig oo casima saarna. Soomaaliyana sanduuqul bariid badanka uma leh. ama lambar iska geli ama iskaga tag. gmailka geli baa lagu yidhi halkaa. markii maxay ahayd gurigaaga geli baa la yidhi. haatiful mansil geli. calaamad casi kuma taalo ama xidig casi kuma taalo, waa iskaga tegi kartaa. mas-uulkaaga geli lambarkiisa la yidhi. Soomaaliya tagaynaa. lambarka waalidkaaga geli ama lambar kale aad adigu leedahay oo lagala soo xiriiri karo. lambarka markaad gelisid meesha escape-kaaga ka geli. escape-ka halkaa waad gelinaysaa. escape-ka waxay kaaga baahan tahay jaamacaddan hadhow marka haddii ay ku aqbalaan oo malafkaaga iyo dokumentiyadaada ay qanciyaan, way kula soo xiriirayaan interview ama muqaabalan way kula yeelanayaan. sidaa waad escape-ka tegaysaa. escape-ka marka tagtid waxaad soo koob garanaysaa escape name-kaa soo koob garin. escape waa inaad leedahay markaa escape samaysataa. escape-ka markaad samaysatid maxay ahayd si aad escape name-ka usoo qaadid, escape-kaad gelaysaa, setting-kaad tegaysaa. setting-ka markaad tagtid escape name-kaad tegaysaa. escape name-ka markaad tagtid waad ku dhufanaysaa. calaamad copy baa kuu soo baxaysa.
waad koobi garanaysaa waad soo qaadanaysaa Skype name-kii halkaas isagana ku koobi garan ka soo soco halkan waxaa ku qoran shahaadadii macluumaadkii iyo waxyaabihii waxbarashada soo dhigatay background-kaaga waxbarashada halkana loo baahan yahay marka waxa la weydiiyay shahaadadaadu waa noocee ma shahaado khaas ah bimacnaa ama private ba ma shahaado dawliyaba ayaa la weydiiyay marka waa shahaado xukuumiya hadday shahaadada federaalka tahay matalo kale xukuumi baad ku dhufanaysaa hadday FBNS tahay waxaad ku dhufanaysaa shahaado khaas ah baad ku dhufanaysaa nooca wey nidaamka shahaadadu muxuu yahay ma nidaamka Algeria ma Mareykanka ma Australia ma Bangladesh ba waxbarashada soo dhigatay nidaamkeedu waa noocee marka waxaan iska dhahnaa waa nidaam kale weeye maaha inta halka ku yaala midna ma kulle daanu nidaamka Soomaaliya waxbarashadeedu ku waafaqsan yahay garan maayo marka haddii aad ogaatid nidaamka Soomaaliya waxbarashadu ku yahay hadduu matalo kale Ingiriiska waafaqsan yahay hadduu Australia waafaqsan yahay waad soo ogaan kartaa average guud aan ka keenay imtixaankii form 4 matalo kale wuxuu ahaa 94 batri 94 baad dooratay waxaad dhiganaysaa wuxuu ahaa ma cilmi mise waa adabi ma science ba mise waa social haddaad matalo kale macad ka baxday waxaad dooranaysaa adabi baad dooranaysaa haddii aad iskuul ka baxday iskuulkaas uu yahay iskuul cilmiya waxaad dooranaysaa cilmi baad dooranaysaa magaca iskuulka qoraysaa dawladda shahaadada aad ka soo qaadatay ama dawladda shahaadadu ka soo baxday waa Soomaaliya haysaa haddii shahaado Soomaaliya sidatid weeye dad Kenya meelaha ku nooshahay passport Soomaali sidatid ama Ethiopia ku noolahayna Ethiopia ku nooshahay dawlad ka dhigataa Ethiopia ama Kenya sanadka shahaadada heshay ama magaalada shahaadada ka qaadatay ma Muqdisho ma Luuqba ma Hargeysa ama Soomaaliya magaalada ka qaadatay tan kale jawhar badooro luqadda aad ku dhigatay waxbarashadaada tan kale waxa dhahaya waa English baan wax ku bartay shahaadada xilligaad heshay shahaadada iskuulka waxaan ka baxay tan kale baan nidhi 2019 bishii May 2 halkan waxaa laga baahan yahay shahaadadii iyo wixii dokumentiyadii waxbarashada ayaa loo baahan yahay marka halkan waxaa 4 shay baa loo baahan yahay kow shahaadadii guud form 1 form 2 form 3 form-ka waa loo baahan yahay kashf darajaadkiisii form 2 kashf darajaadkiisii waa loo baahan yahay form 3 gana kashf darajaadkiisii ayaa loo baahan yahay marka waxaad samaynaysaa waad soo qaadaysaa kashf darajaadka soo qaaday ama shahaadadii guud weeye shahaadadii guud baan soo qaaday imka shahaadooyinkana marka soo qaadaysa halkan soo gelin sida waa inay sawir ahaan waa inaanay PDF ahaan waa inaanay Word ahaan waa inaanay wax kale ahaan GBT weeye halkaas oo aragtay GBT baa ku qoran تحميل صورة الجواز السفر بصيغة BNG أما GBT ayaa loo baahan yahay waad la socotaa dhammaan waxaan soo wada geliyay maxay ahayd dokumentiyadii ku saabsanaa waxbarashada ayaan soo wada geliyay halkaa ka soo soconaysaa halkan waxaa la weydiiyey shahaadooyin kale miyaad diyaarisay diblom miyaad diyaarisay jaamacad kale miyaad dhigatay haddii jaamacad kale aad dhigatay matalo kale aad diblom haysatid ama jaamacad kale aad diyaarisay oo aad diblom caali wax haysatid ama baccalaureate kale aad haysatid deeqda waxbarashada aad doonaysid halkaasaad macluumaadkeeda ku buuxinaysaa luqadahan ku hadlo matalo kale waxaa carabi baan ku hadlaa English haddaad tiraahdo waan ku hadlaa Englishta waan aqaanaa waxay kaaga baahan yihiin shahaadada IELTS ama TOEFL ama shahaadooyin kale oo lagu cadeynayo inaad English taqaanid baa lagaaga baahan yahay mustawaha aad luqadda carabiga ka tahay waa kee ma mustawa JT damba ma mumtaaz fa ma qawiga marka waxaan aad iyo aad baan ugu xooganahay luqadda carabiga halkan waxaa lagaaga baahan yahay laba shay baa lagaaga baahan yahay labada shay lagaaga baahan yahay waxaa weeye ama dhowr shay 4 shay baa lagaaga baahan yahay kow waa inaad soo qaatid shahaadada dhaqan wanaagga suluk wanaagga iyo akhlaaq wanaagga shahaadada xusni siir wa suluk
iyadu waa inay sawir ahaataa sawir waa inaad soo qaadaa sidoo kale waa inaad soo qaadaa warqad caddaynaysa caafimaadkaaga inaad xanuunada gudba inaad xanuunada gudba lahayn sida beer xanuunka iyo xanuunada la midka marka warqadaas way caddaynaysaa baa la yidhi ardaygan inuu ka maran yahay xanuunada gudba warqadaas caafimaadku waa inay tasdiiq ka wadato wasaaradda arrimaha dibadda ardaygan uu ka socdo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waa in ay shaambadeeda taalaba lagu leeyahay halka waxaa lagaga baahan yahay wasiiqatu tacaaruf macnaheedu waxay tahay waa wax bimacnaa CV u dhigan oo qof ku caddaynayo magaciisa dhalashadiisa warqad sidan oo kale u taalo weeye waatan warqad matalan oo kale magaca jinsiyadda baasaboor lambarka diinta uu haysto aabihii magaciisa taariikhda uu dhashay hooyadii magaceeda taariikhday dhalatay xaaskiisa waxaasaa lagu qorqorayaa waa wax CV uun macnihiisu yahay marka kaas waa inuu noqdaa waa inuu word noqdaa waa inuu word noqdaa waa inuu noqdaa marka word baynu soo qaadaynaa box waa inuu noqdaa waa leeyahay word baynu tan kale meelahan ka eegnay كان كذلك هي موافقة إدارية للطلبة غير المقيمين في دولة الإمارات. مركا ودولتي وقف كانوا كسعودي وقد عدينيسا إنه maxay hayday muwaafaqo ah ayaa loo baahan marka ku dhufo qodana soo qaad inta markaan soo dhameeyno waxaad sameynaysaa saddexdan baad tig saaraysaa saxda saaraysaa shuruudaha deeqda waxbarashada waan waafaqsanahay shuruudaha aqbalitaanka waan waafaqsanahay waxaan ballan qaaday nidaamka jaamacadda iyo maxay hayday tacaahud inaan galay ballan inaan ilaalinayo irsaal baad haysaa saasaad ku diraysaa marka wuxuu ii soo saaray intaa markaan dhamaystiray wuxuu ii soo saaray calaamad sax uu ii soo saaray oo ah maxay hayday in dalabkaygii la diray malafkaygiina uu jaamacadda gaadhay sidaa awgeed wuxuu yidhi arrajaa mutaabacatu fariidka elektroni limacrifati xaalad dalabka si aad ogaatid halka uu marayo dalabkaagu waa inaad gmailkaaga la socotaa bali gmailka haddaan tago imika waxaa soo galay messagekan baa soo galay waxaa soo galay jaamaca alqaasimiya waxaa ii soo galay raqam dalabka way soo galay raqam dalabka ayaa soo galay Q2011 raqam dalabka way soo galay halkaas ayaad kala soconaysaa jaamacadda iyo dalabka kolku marayo iyo haddii la aqbalo halkaas ayaad kala soconaysaa sidaana waxaynu ku xiraynay oo aan fiidiyowga ku caddaynay qaabka loo xiriirsto jaamacadda la dhaho jaamaca alqaasimiya fadlan haddii aad ka faa'iidaysatay la wadaag asxaabtada kale qof kasta oo cilmi u baahan oo aqoon doonaya si uga faa'iidaysto sidoo kale channelkana subscribe saar si aad ula socoto jaamacadaha aynu kusoo gudbin doonno haddii laakiin qaabka loo xiriirsto aad iyo aad u mahadsantihiin wajazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh